yiraahdaan ilaahay markuu arlada abuuray oo arlada ilaahay uu kala todoba arla uu ka dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala arshiga hoostiisa ayuu wuxuu ka soo bixiyay malag oo ka soo bixiyay madagi ayaa markaas arlada u soo degay ilaa markaas waxa weeye todobada arlada ugu hooseysa markaas uu ka tago marka halkaas markuu degay meel uu lugaha dhiga ayuu waayay markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu ka soo diray firdawsa ayuu ilaahay ka soo diray dibi ayuu ka soo diray oo leh 40 maarataya kun oo markaas gees leh iyo 40 kun oo lugood leh markaasuu qaraarkii macnaha malagi meesha uu lugaha dhiga lahaay waxa laga dhigay dibigaas dushiisa haddana waxa weeye lugihiisa sugnaa waay ilaahay soo qaaday haddana jawhar cagaaran oo markaasi darajatul firdaws darajadeeda meesha ugu sareysa laga soo qaaday oo markaasi xajmigeedu uu lahay 500 oo sano intii loo socdo markaasuu alla wuxuu ku dajiyay dhahan dibigaas duudkiisa ilaa markaasi waxa weeye dhagtiisa markaas ayaa waxa sugnaaday malagi meel uu markaasi cagaha dhigto ayuu helay marka dibigaas markaasi geesihiisu arladatan khaarijkeeda ayay soo baxsan yihiin maarataya afkiisuna waxa uu ku dhex jiraa badda ayuu ku dhex jiraa maalin kasta ayuu neefsadaa marka neefsa ayuu neefsadaa hadii uu neefsado baddu waa taagmaysaa baddu waa kacaysaa hir ayaa kacaya hadii neefta uu cishane baddu hoosay u sii dhacaysaa hadda markii saasay dhacday dibigi markaasi luuhiisi ayaa meel ay ku sugnaadaan la waayay ilaahay markaasuu dhagax abuuray oo xajmigiisu uu leeg yahay todobada samo iyo todobada arlo waxa markaasi dibigiya ku istaagay markaas sakhradaas dhagaxdaas waxa weeye midal aw luqmaan uu dhahay markuu wiilkiisa wacdaaye fatakun fi sakhratin aw fi samawati wa tan soo mari jirnay haddana sakhradiya meel ay ku sugnaataa la waayay ilaahay markaas wuxuu abuuray nuunkan waxa weeye waa malay markaas waxa weeye dibigiya la hoos dhiga markaas waxa la dhigay maarataya dhagaxa ayaa markaas dibigi dushiisa la saaray jasadkiisi jirkiisi intiisa kalantoodna waxa weeye markaasi banaanka yaalin marka waxa dhacday markaasi xoodki dabayl ayaa markaas dushiisa la saaray qudrada ilaahay ah markaas adduunyada dhamaanteeda meeshaas ay markaas ay saaran tahay ilaahay markaas wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala kuni fakanat sidaas ahaw markaas sidaas ay ku ahaatay oo markaas intaas oo isku rakiban ayaa markaas arlada tan ka hooseysa nuunkuna kaas way yiraahdeen laakiin ilaahay baa